waxaa gordhow filla Soomaaliya ku soo idlaaday shirkii u dhaxeeya golaha mustaqbalka Soomaaliga sidoo kale madaxda ugu sarreeyay ee dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ilaa haatan aysan jirin wax natiijo ah oo laga gaaray shirkaasi waxyaalaha shirkaasi looga doodaya ayaa waxaa kamid ah doorashooyinka dawlad goboleedyada iyo sidoo kale tan federaalka iyadoo ilaa haatan aysan jirin nooc doorasho la isla meel dhigay in dalka ka dhacdo madaxda golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa iskaga soo tagay madaxtooyada Soomaaliya iyadoo is aragii labaad oo ay la yeeshaan dawladda federaalka Soomaaliya oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan ma jiro tanaasul ka yeelan labada dhinac taas oo keentay inuu shirku fashilmo isla markaana aysan jirin wax la isla meel dhigay ilaa haatan dhinacyada shirka u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa mid kale ku adkeysanaya doodiisa uu wato iyo sidoo kale qodobada uu shirka la yimid shirkan oo saacadii la soo dhaafay isha lagu wadahay waxyaalaha ka soo bixi kara ayaa iminka soo idlaaday ma jirto wax faahfaahin oo intaas ka baxsan oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka bixiyeen ama golaha mustaqbalka Soomaaliyeed shirkan is araggiisii labaad maanta natiijo la'aanta ku soo dhamaaday lamana oga waxa xigi doona iyo sidoo kale halka laga aadi doono isgoyska siyaasadeed ee iminka la taagan yahay